بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta muuqaalkan idin sameynayo waxa aan rabaa inaan dib u soo qaato muuqaalka anoo ka arkay 6 sano ka hor macallin ardaydiisa wax tusaya tusaale tusaya. Macallinkaasi waxa filayaa inuu Mareykanka joogay san lahjada oo Ingiriisiga ugu hadlayay ka dareemay in Mareykanka ahayd baan filayaa 6 sano ka hor muuqaalkii hadana save gareyn meel aad ugu hagaagtaa ma jiro. waxaan jeclaystay inaan dib u soo sameeyo tusaalihii ardaydiisa tusayay. tusaalaha anigu aad baan ugu qancay. inagana waxaan rajeynayaa in aad ku qanci doontiin oo arki doontiin oo fahmi doontiin waxyaalaha qaar. indhuhu waxay arkayaan ayay maskaxdu aqbashaa, ama haddaan si kale u dhigo maskaxdu wuxuu aqbalaa wixii indhuhu arkayo. kamaanta tusaalahan aan idin sameeyo waxaan isleeyahay insha Allah dad badani faa'iido u noqon doonta haduu la yiraahdo. biyaha cad haddii aan ku laaqo ciida yar iyo khashinka aan meesha ku soo ururiyay, haddaa biyaha ku laaqo de wax kale soo saaraya balan isla eeg. waad aragtaan kalarkiisa uu bedelay. kalarkii ma bedelay de maanta dhan haddii aad istiraahdo bal waan isku dayayaa inaan nadiifiyo oo sidaa aad uga gurto kolba ya dad saa uga gurto wax yar baa ku soo raacaya wixii aad soo qabays lahayd hamu ka siibtaaba hadmu dib ugu noqdaaba. inta aad wax gurayso waqti baa socda, inta aad wax kala gurayso kala qufayso biyihii uu ku soo raacaya biyihii baa si yaraanaya ya taana waqtiga ayaa laga hadlayaa. biyahani marnaba si kasto oo isleedahay u nadiifi wax uga gur sidiisi kuma soo noqonayo. laakiin haddii aad sida biyihii loogu wado aad ugu shubto biyo nadiifa maxaa dhacaya? waxa dhacaya biyihii baa isbedelaya, kalarkiisa baa isbedelaya, khashinkii baa ka daadanaya, biyihii wuxuu soo baxayaa clear. moor ayaad ku sii wadaysaa biyo nadiifa, moor ayuu kalarkii biyuhu isbedelayaa. in kale haddaan soo buuxsado oo ku wado de wuu isbedelayaa. waa idinka arkay markii hore sidoo weeka iyo imika sidoo noqday aan bogsado ku soo dhawaaday. aad baan ku salaamayaa. maanta tusaalaha yareen ku tusay waxaan u maleynayaa inaynu u baahnayn inaan in badan hadlo oo waad fahanteen baan filayaa. kubaayadii cadeyd walaalayaal biyaha cadaankii ku jiray wuxuu ka turjumayaa biyaha cad inay tahay noloshaada markii hore baa nuuraha, markii hore baa iftiinaha, markii hore baa nadiifaha. marka ilaan bil aadan iyo bashar ayaa tahay aad naftaada aad ka gasho aad dambi ka gasho ama qof aad ku xadgudubto ama adiguba aad iska gasho aad wax isgeysato ama qof kale aad wax u geysato, marka aad way dhici kartaa waxyaalaha isleedahay maanta waxaan doonayaa inaan waxa qabsado, laakiin haddana waxyaalena seegi kara marka wax ku seegana walwal ayuu dadka ku beeraa. waxa ku seegay dad maanta dhan ka fikirtidun de waxaad ku jiraysaa walaal istaanbay baad ku jiraysaa, noloshii hore ayaad ku jirtaa. maanta inay maanta tahay cadceed soo baxdayba dad badan baan war u hayn walaalayaal. marka waxa sida kubaayada aan tusaalaha idin ku tusay haddii aad mar walba xumaatihiin hore oo maanta dhan maskaxdu inaga jiro noloshu sidaan bay mugdi u ahaanaysaa. sida kubaayada soo madoobaadi uu mugdi u ahaanaya noloshaadu. laakiin haddii aad action qaadato oo kor u kacdo oo istaagto oo tiraado maanta waa maanta wixii hore u dhacay waa wax hore u dhacay oo sida sheega biyaha aan soo qaatay biyaha ugu soo shubay kubaayada wasakhdu ay ka buuxdaan kolba ugu shubay maxaa meesha idinka ifay, maxaa meesha kaaga soo baxay kubaayadii oo khashinkii xabad uu ka daadanayo, kubaayadii oo biyihii hadba kalarkiisu soo bedelayo oo iftiin iyo cadaan iyo nadiif ku dambeeyay. maxaa dhacay? khashin oo dhan buu soo tufay kubaayadii, khashin oo dhan buu biyihiis ka soo tufay, biyo nadiif oo clear ayaa soo baxay. maxaa noloshaada markaa bedeli kara? maanta dhan haddaad istiraado kubaayada xabad malaqaacada uga soo gur khashinka waqtiga ayaa ku dhacaya, enerjiguna uu ku dhamaanaya mar walba daaliye. marka nolosha waqtiga ha ka ridin, naftaada waqtiga ha ka ridin, in stand bay haysgelin
energy-gan ha iskaga dhamayn waxaanad soo celin karin oonad bedeli karin wixii dhacay wuu dhacay maanta laga bilaabo sidaad jeegaa biyaha aad kubaayadaada ugu shubayso noloshaada ugu shub wax waliba nuur gelinaya wax waliba wanaag kuusoo kordhinaya noloshaada kor u qaad noloshaada hore u wad fahantay markaasaad jeega biyahan kubaayada ugu shubay adiguna naftaada ku shub wanaag walba qur-aankii ku shub xadiiskii ku shub xarkaa ilaahay dib u qabso in qofkaad ku gaftay cafiska dalbo iyo cafidhe naftaada haddaad ku gaftay naftaada cafi waxay tiraahdaa maanta inagaa isku dhex nool waan kuu baahanahay waynanu hore u socono iscafi haddaad khaldantay bashar baa tahay ayaan khaldamin ibni aadan dhan way khaldamaan muhiimadu nolosha intii tagtay maaha muhiimadu waa maanta iyo waxa soo socda wixii hore u tagay waa waxa nafta aad ku baranayso waxyaalo aad u baahnayd sida maanta haddaad miis soo iibsato soo miiskii qalabkii lagu xirxirayo uma baahnid dee noloshaadana walaal waxay u baahan tahay qalab bay u baahan tahay qalabkuna waa experience-ka waa waxaad hore u soo martay waa waxaad hore ugu soo khaldantay waa waxaad hore ugu soo gaftay waxaasoo dhan ba cashar ku noqonayo nolosha inta ka dhimanay harsan waxyaalaha hadduu cashar ku noqdo wax ka qorato dee wixii dib uguma laabanaysid dadkiiba markaa dhowrasa maxaa markaa muhiima maanta muhiima iyo waxa soo socda haddaad qof ku gaftay iska cafi iska dalbo haddaad naftaada ku gaftay naftaada cafi tiraahdaa waan isku baahannahay horaan u soconaynaa hadday wax ku seegeen kuma qornayn waxani kuma qorna hadduu ku qoran yahay waad heli lahayd marka wixii ku seegay ma soo qaban kartid ma qornayn laakiin maxaa ku qoran waxyaalaha soo socdaa ku qoran waxyaalaha soo socdana dee waa inaad diyaar u ahaato haddaad noloshii hore ku jirto waxa soo socda diyaar uma ahaanaysid marka walaalayaal videoga intaasaan kusoo koobayaa naftu iyo noloshan adaa iskale sida ugu quruxda badan leh waxuwad gaadhiga shoogaantiisa adaa haya markaad khaldanto kasoo laabo xumaan walba wanaag ka dambeysay sidaa kubaayadaasi markii dambe u cadaaday ayaad haddaad noloshaada wanaag badan usoo kordhiso noloshaada mugdiga uga baxayaayo nuur ku dambeyn doonaa quruxu ku dambeyn doonaa iftiinu ku dambeyn doonaa adiguna aad ku dambeyn doontaa qof wanaagsan oo guul maalin walba ku jira insha allah muuqaalkan waxaan rajeynayaa inay idiin noqoto tusaale aad wax walba ku fahmi kartaan insha allah waayo maskaxdu wuxuu aqbalaa wixii indhuhu arkayo aad baa idiin salaamayaa asalaamu calaykum